السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada muuqaalkeen labaad maanta waxaanu qaadan doonaa waxa loo yaqaan negative space logo. fadlan haddii aad channel ku cusub tahay hore noogu jirin soo dhawow subscribe saar si aad casharada dambe ula socotaan ama muuqaalada dambe aan soo gelin doono. casharkan like saar sii share gareey la wadaag asxaabtaada wixii faalle aad ka qabto waxaad igu reebi doontaa commentiga hoose. casharkan baynu maanta bilaaban doonaa waxa weeyaan negative space logo qaabkee loo sameeyo. marka negative space logada aynu sameynayna waxay ku saabsan tahay sida caadiga ah duck waxa loo yaqaano ama nooc ka mid ah digaaga oo duck la yiraahdo. haddii aan soo dhaweeyay imika waxaad arkaysaa halkan waxa ku jira duck face ama intii qoorta ahayd ee duck halkanna waa dd oo xarafka d-da. imika markaan ka durkiyo labadaba waad fahmi kartaa waanaad arki kartaa face-ka meesha ku dhex jira inuu xarafku d yahayna waad fahmi kartaa. macnuhuna wuxuu ka turjumayaa face-ka meesha ama wejiga qoorta duck ee meesha ku jirta. markaas si fiican baad fahmi kartaa. waxaana la isticmaalay negative space oo ah negative space oo intani way ka dhex maqantay. marka waxay ka dhigan tahay in si kastoo aad loogadan u isticmaasho intani waxay qaadan doontaa background-ka aad dul dhigayso ay qaadan doontaa oo mar walba iyadu color-ka background-ka ay qaadan doontaa. markaasaas negative space loo yidhi oo waa space ka maqan meesha laakiin macna samaynaya oo macna muujinaya. marka waynu iska bilaaban doonaa. marka horeyso waxaynu u baahanay si aynu negative space loogu samayno inaynu waxaynu doonaynay inaynu ka samayno reference aynu ka haysano ama picture reference aynu isticmaali karno. marka wuxuu hadii wax natural oo jira u yahay oo sawir laga heli karo waxaad samaynaysaa in aad sawir ka doono wixii imika kale albaab yahay ama waxyaabo noocaas kale yahay oo wax hadee qofku sawiri karo oo isoo gacantiisa ku sawiran karo laakiin wuxuu natural iska yahay sawir baad ka soo qaadatay. marka waxaan tagayaa Google-kayga halkan waxaad ka arkaysaa duck baa igu taagan. marka waan shimbirta noocan ayaa duck la yiraahdaa. taasaan markaa qaatay anigu oo aan la degay. halkan haddii aan imaado Illustrator waxaad ku arki kartaa haddii aan saan soo weyneeyo halkan buu iga muuqdaa. marka sawirkan baa waxaan doonayaa inaan reference ka qaato si aan negative space ka sameeyo. marka intaan aan saan u select gareynayaa aan sameeyay kadib waxaan sameynayaa group ka dhigo hal group baa iskaga dhigayaa kadib waan iska qarinayaa. markaan iska qariyo kadib waxaan sameynayaa inaan air duck-kii soo muujiyo. qaabkan markaan soo muujiyo kaliya waxaan sameynayaa waxa weeyaan in aan inta wejiga ka select gareysto oo aan pen tool-ka la raaco anoo markaa si fiican ula raacay reference ka sameynaya. waxaan tagayaa pen tool-kayga kadib halkan baan click leeyahay halkaasaan ka bilowday kadib air baan saa leeyahay qaybta hore air kadib waxaan sameynayaa inaan control qabto aan angle-kan yar kor yara dhaqaajiyo waayo iga yara qalacsamay. kadib waxaan sameynayaa taasaan leeyahay kadib waxaan sameynayaa inaan halkan imaado waan haddana sidaa idhaahdo aan halkaa kale saa ugu soo wareejiyo. haddana air baad click iska odhan kartaa anchor point-kaas sidaas iga xidho air baan haddana saa leeyahay halkaasaan saasaan raacinayaa kadib waan iska xidhayaa halkanaan imanayaa in yar baan saa yara qalloocinayaa kadib halkaasaan imanayaa in yar baan saa yara qalloocinayaa click baan leeyahay haddana halkaa kale aan tegayaa saasaan odhanayaa qaabkaasaan u sameeyaa. intaa markaan sameeyo wixii correction waa hadhow iyo meelaha uu ka tagtaga selection-ku waxaan sameynayaa horta inaan stroke ka dhigto si aan u arko kadib waxaan sameynayaa halkaasaan iska imanayaa intaa dambe waayo uma baahni halkanaan imanayaa halkaasaan imanayaa kadib halkaasaan click leeyahay qaybtaa hoosaan sameynayaa qaybtaa hoose saasaan u sameynayaa halkaasaan click iska leeyahay haddana halkaasaan tegayaa yar baan saa yara qalloocinayaa halkaasaan tegayaa saasaan leeyahay qaybtaasaan saa u sameynayaa saasaan leeyahay kadib click baan halkaas iska leeyahay kadib air baan halkan imanayaa halkanaan imanayaa kadib halkaasaan imanayaa saasaan leeyahay. weliba waxa kaga fiican haddii aad isticmaasho curvature tool-ka ayaa ka fiican oo si fiican kugu raacaya. halkaasaan click leeyahay haddana halkan ayaan click leeyahay air baan haddana halkaa click odhanaya. haddaba maxaynu u baahannahay meelaha qalqaloocu ka jiro oo dhan inaynu toosino waxaan sameynaynaa inaynu soo dhaweysano qaabkan soo dhaweysano. marka halkaasoo kale haddii aad arki karto waxaan sameynayaa inaan direct selection tool-kayga isticmaalayaa in yar baan kor saa ugu yara qaadayaa haddana anchor point-kan aan saa soo leeyahay waxaan dul fadhiisinayaa shape-ka halkaasaan saa leeyahay kadib haddana space-kaan qabsanaya saanaan u yara riixayaa kadib meelahan oo kale hadhow waxaan sameynaynaa inaynu round ka yara dhigno aynu anchor point-iska yara toosino saanaan leeyahay waan soo dhaweysanayaa haddana anchor point-kaasaan qabanayaa halkaasaan geysanayaa kadib in yar baan saa u yara celinayaa kanaan soo yara durkisanayaa saasaan soo yara durkinayaa shape-ku si fiican igu qabto halkaasaan keenaya. halkaa markaan keeno kadib waxaan sameynayaa inaan ka yar saa yara soo yara celiyo kadib anchor point-ka aan isticmaalo aan saa yara idhaahdo saasaan yara toosinayaa kadib saanaan usoo noqonayaa halkan waa saxdii halkanaan imanayaa waxba markaa ha ku xisaabtamin
qaybtan dhogorta ku xisaabtamin oo dhogorta la raacayso dhan waa inaad stroke samayso ku wareegsan qaybtan saxdi bay tahay halkaas oo kale in yar saa u yara dursanaya kadib waxaan leeyahay anchor point kan aan qabanaya saana leeyahay ku tusinaya qaabkaasaan ugu hagaajinaya xaggan aan imanaya halkan error ka jira waxaan sameynaa kan doorto kadib saasaan leeyahay yar baan kor yara celinaya marka anchor point-da hoosta iska soo galay isku soo dhawaaday kadib saasaan leeyahay saasaan yara celinaya halkaasaan ku diinayaa kadib waxaan sameynaynaa saan soo idhaahdo xaggan sare saas inoogu dhey kadib waxaan sameynayaa isha iyo halkaa yare sanka daloolka ayaan samaysanayaa kadib waxaan soo qaadanayaa pentoolkaygii halkan aan imanaya click baan leeyahay haddana halkaasaan click leeyahay kadib shape-kii isha saasaan ugu fadhiisanaynaa kadib haddana halkaasaan imanayaa saasaan leeyahay kadib halkan anchor point-kaasaad ka saaraysaa si aad markaa u toosisato altaad qabanaysaa click baad leedahay kaa xidhmaya kan kale aad ku xidhaysaa saasaad leeyahay iminka shape-kiisa waynu fadhiisinay click baan leeyahay kaasuu inoogu fadhiyaa waxay noo hadhay halkan oo ah duleelka sanka pentoolkan soo qaadanayaa halkan aan click leeyahay koonaha kale aan click leeyahay saasaan ugu yar fadhiisinayaa kadib halkaasaan imanayaa altaan qabanaya anchor point-kaas ku xidhaya kan kale aan dooranayaa saasaan leeyahay saasaan ugu fadhiisinaya markaan intaa ku fadhiisino kadib waxaan sameynayaa inaan dib uga yara baxno meelaha markaa geeska ah oo kale ayaan leexinaynaa marka hore inoo door direct toolka tag kadib anchor point-yada yarar inoo soo baxay ayaan round ka dhigaynaa click baan leeyahay saasoo kale aan yara qalloocinaynaa haddana kan kale aan imanaynaa si markaa cidhifku uu meesha uga baxo ama geeska yara taagan si uu meesha uga baxo aynu isticmaalay click baan leeyahay yar baa saa yara qalloocinayaa haddana xaggan aan usoo durkayaa meelahan kale ka eeg selection-kii baan ka qaadnay toolkan tegayaa kadib waxaan tegayaa direct selection toolkayga halkaasoo kale in yar baan saas yara odhanayaa saanaan u soconaynaa ilaa aan meel kaloo aynu u baahanay inaynu yara qalloocino aynu helayno saasay noogu dhan tahay kadib waxaan sameynaynaa inaan dib uga baxno baynu uga baxaynaa markaynu qaabkaa dib uga baxno waxaynu sameynaynaa inaynu sawirka iska xidhno sawirkan iska qarinaynaa kadib waxaa noo soo hadhay stroke-geeni haddaad arkayso oo dhammaystiran kadib waxaan sameynayaa inaan stroke select garaysto aan halkan keeno isagaan dooranayaa fill baan ka dhigayaa markaa madow kadib waxaan dooranayaa isha iyo duleelka sanka waxaan sameynayaa waxaan tagaya color pickerkayga caddaan baan ka dhigayaa markaan qaabka caddaan uga dhigo in yar baan halkaas ka dhigay kadib qoraalkii baan haddaba qoranayaa markaa qoraalka anigu farta mar hore ayaan soo doortay oo far baan soo select garaystay adiga waxaa lagaa rabaa inaad far soo doorato kadib farta markaad ku soo qanacdo aad ka saarto negative kadib saanaan usoo weynaysanaya haddii aad arkayso fartayda markaan saa usoo weynaysto waxaan sameynayaa tape baan tegayaa waxaan ka dhigayaa create outline kadib right click baan leeyahay ungroup baan leeyahay kadib waxaan sameynayaa intaan aan select garaynayaa waan iska qarinayaa gebigooda saasaan iskaga qarinaya markaan iska qariyo tan aan dooranaya waan soo qaadayaa kan horta waxaan sameynayaa inaan gebigiisaba isku wada xidho oo aan fil wada madow ka dhigo saasaan ka wada dhiganaya dhiidayda kadib tan aan dooranayaa waan yaraynayaa waan qalloocinayaa markaa in yar baan yara qalloocinayaa ama sideedaasaan ku daysan karaa waan soo dhaweysanayaa kadib waxaan sameynayaa inaan saa yaro durkiyo taasoo kale in yar baan saa yara qalloocin rotation baan ku yar sameynayaa halkaasaan keensan karaa gudaha intaa markaan sameeyo kadib waxaan sameynayaa waan isku wada doortay kadib waxaan tegayaa shape builder toolkayga waxaan altaan qabanaya si uu maynisu noqdo dibaddaan ka saaray intaan waan ka saaray haddii aad arkayso labadii nood baan ka saarnay waynu ku samaynay negative spacing-kii kadib dhiidii saasay noogu dhantay ayarba haddana waxaan sameynayaa inaan soo celiyo haddaba layradii kale ee xarfaha inta kale markaan saa u soo celiyo yar baan dib isaga yar saarayaa waxaan sameynayaa inaan soo qabto kadib shifti aan saa u wada yareeyo markaa imika waa ii suukaysmay qaabkaasay noogu dhantay kadib maxaad samaynaysaa inaad color u samayso double click baan leeyahay inkoo kale waxaan ka dhiganayaa bluega noocaasaan ka yara dhigayaa okay baan leeyahay haddii aad arkayso way noo qaadanaysaa tii hore aynu samaynayna markaa haddii aan soo saaro intaan tan hoos yara dhigo aan sidaa idhaahdo oo aan tii hore aynu samaynay soo saaro waxaad arkaysaa waa isla halkii markaa negative spaceka qaabkaas aad u samayn doontaa kanna haddii aad arkayso waa looga iconka kaa iconkaasoo keligiyaa la isticmaali karaa marka la doonayo in icon la isticmaalo laakiin waxaan ugu talagalnay waxa weeyaan loogadu waa word mark qaabka loo yaqaano ama word mark oo ah inay ku dhisnaato loogadu qoraalka oo dhammaystiran ama magac oo dhammaystiran in loogada lagu dhex sameeyo mararka qaarna waxaa la isticmaala waxyaabaha iconka loo yaqaano oo in kaasoo keliya loog ahaan loo isticmaalo inta kalena magacuna ay noqoto oo kaa aad brand awarenesska loo badiyo oo dadku aad u bartaan kaa
marka qaabkaas u sameeyay negative spacing ka halkaas aan ku joojinayaa fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saar like noo saar muuqaalka wixii faaleed qabtay comment-ga hoose ku reeb siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada haddii aad nagala socoto Facebook sidoo kale follow dhe like noo saar siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada halkaas aan ku joojinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh